بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم halkii baynu kasii wadaynaa aqoontii islaamka duruustii ku saabsanayd waynu soo dhamaynay qaybtii caqiidada qaybtii camaliga ahayd baynu ku jiray marka maanta waxaynu maraynaa al-akhlaaq wal-mucaamalaat qaybtii habdhaqanka qofka manners and interrelations akhlaaqdu waa meesha qof ka tooso ee uu ka noqdo qof lugihiisa ku taagan akhlaaqdu qofka hadday ka luntana waa meesha ku daandaama ee uu ku noqdo waxaan jirin akhlaaqdu waxa weeyaan waa qiimaha qofku leeyahay alqayim value mucaamalaadkuna waa xiriirkii uu dadka kale la lahaa iyo maxaa tahay makhluuqaadka kale marka akhlaaqdu bay soo hoos gashaa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam inama bu'ithu liutammima makaarim al-akhlaaq waxaa la soo saaray inaan dhamaystiro akhlaaqteeda wanaagsan Aisha radiyallahu anha markii la weydiiyay habdhaqanka nabiga waxay tiri kaana khuluquhu al-qur'an habdhaqankiisu wuxuu ahaa qur'aanka soconayo un buha marka weeyaan akhlaaqda de waxbaa la isfaray akhlaaqda waxa weeyaan waxyaaba fara badan oo qofka la doonayo inuu ku dhaqmo oo ku noolaado ayaa la faray habdhaqanka nolosha oo dhami inuu qofku u wanaagsanaado oo wixii la faray ee wanaagan la yimaado wixii xumaan iskaga tago akhlaaqda wanaagsan maxaa ka mid ah runtii naxariistii samafalkii maxay ahaatay hal ma jiro way soconaysaa akhlaaqda waxaa ka mid ah dabeentii iyo isku dirkii iyo xaasidnimadii iyo tuugadii iyo fawaaxishtii kale iyo wixii fisqiga iyo daroogadii iyo waxaas oo dhan taasna la doonayaa ubadkeena iyaynu ku tarbiyadayno caruurta oo markay teenage-ka yihiin oo markay lumaan ee daadku qaado inta badan akhlaaqda ka lunto rag iyo dumarba marka in lagu ilaaliyo akhlaaqdii wanaagsan la baro caruurtii ayaa loo baahan yahay inaguna akhlaaq wanaagsan la nimaado ila qofku haddii aan soo akhlaaq wanaagsan la iman waxa weeyaan waxba laga dhigaysan maayo marka akhlaaqda wanaagsan qofku waxay baraysaa wax ka dhigaysaa qof lugihiisa ku taagan oo maxay isku filan oo isagu istaraf gareynaya waxay ka dhigaysaa mid naftiisa anfacaya dadkii kale anfacaya qoyskiisa anfacaya makhluuqaadka kale anfacaya hadday noqoto dhir iyo dhagax iyo maxay ahaatay meel walba oo waxyaabahaas de mucaamalaadka iyo akhlaaqiyaadkaas maca dhirta iyo dhulka iyo biyaha iyo wax walba ayaa soo hoos gelaya dhirtiina la goyn geedkii midhaan lahaynan hoostiisii maxay ahaatay lagu kaajin biyihiina lagu kaajin inaan la jarin xayawaankii oo kale saas oo kale inaan la dhibaatayn kuwii dee loogu talagalay in la dilo qaar baa in meel walba lagu dilo maca xaramka laakiin kuwii kale inaan ciyaar loo dilin in loo naxariisto waxaasoo dhan dad iyo dunyo iyo maxay ahaatay makhluuqaad oo dhan marka sidii loola macaamilayay ama dad la macaamil ama makhluuqaad kale la macaamil ama xayawaan la macaamilo waxaasoo dhan diinta lagu sheegay wixiina waa in la bartaa wixii xumaataa in la iska ilaaliyo wax kastoo xumaataa la isaga dina dhibbeelada wax kastoo wanaag la isfarayna faa'iiday leedahay taa waa in lala socdaa marka qof haddaad doonayso qof wanaagsan oo iskii u soconayo oo waxtar leh in la soo saaro waa in akhlaaqiisa laga shaqeeya ta ugu horreysa wey akhlaaqiisa waa in lagu dadaalaa waxba jirkiisa iyo naaxintiisa iyo wixaasu waxba ma sheegaan akhlaaqdiisa markuu qofka akhlaaq yeesho wanaagsan markaasuu qof iska filan noqonaya haddii kale qof iska daandaanu jaanjaan ahoo adiga dhibaato kugu aho ummadda kale dhibaato ku aho bey-adda iyo maxaa hataa deegaanka iyo makhluuqaad kale dhibaato ku abu noqonaya marka intaasu bayaan halkaas kusoo koobaynaa waana la baranayaa de waxyaabaha akhlaaqda wanaagsan way fara badan yihiin lama soo koobi karo waaya waxaan kaloo isku baraarujinaynaa lamarada halkaa ku yaala nagala soo xidhiidha waxaan idin haynaa duruus maxay ahaataay higaad iyo carabi iyo ah si degdeg qofka wax ugu baranayo bugaagteedana PDF tahay oo free tahay free PDF marka siina shargareeya oo channelka lacag laguma sameeyee waxa weeye dadka kale oo sii gaarsiiyaan
سي جارسيا الدال على الخير كفاعل النبي صلى الله عليه وسلم قف خير dadka u sheega wuxuu la mid yahay sameeyo kale yani ajray aqbal loo qoriyo kiin wax laga jari maayo marka si shargeed dadka wada gudbiya casharada ay buugta ay higaadaasna higaad degdeg hoos qofka 7 days wax ku baranayo baa ku jirta channelkan hadduu ku soo bixi waayo higaada quraanka Google geli iyada iska soo baxaysa marka playlist kan waad sii gelaysaa si ay isugu xigaan duruusada doonayso inaan ka kala lumin mid walba playlist ka sii gelaysaa halkaas baynu u deenaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.